marka ay ugu horeysa Faadima Iido Xasan waxa ku soo dhawaataa Muqdisho Cable TV iyo barnaamijka ganacsiga dhaqaalaha waa ku dhaw walaal soo dhaw adigana dabcan waxa kamid tahay inta badan dadka isticmaala daawooyinka shirkadda Tennis ee ku bogsooday xanuunadii dabcan aad ka cabanaysay oo dhibka kugu hayay inta daawooyinka lagu qorin maxay ahaayeen alxamdulillah waxay ahaayeen xanuun oo la yiraahdo xasaasi qanjir oo ku jiro dhuntaan oo infection oo qaada leedahay inta dhowr dhakhtar hore u tagay marka alxamdulillah aan horta markii ay imaanayay kambanigan ma ogeynin in caafimaad laga helo dukaana gadanay dukaana ku lahay suuq kaaran anoo dukaankeyga gadgato gabar kambaniga ka shaqeysa maalin walba waxay soo mari jirtay ayadoo shaqada ka soo baxday markay soo mari jirtay gabadhiya saameyn ugu yeelatay waa su'aal marka waxaan dhahay adiga maalin kasta inta ka imaataa waxay tir kambaniga ka shaqeeyaa kambaniga maxaa laga qabtaa kambaniga hanti iyo caafimaad laga helaa tire hanti iyo caafimaad laga helaa markaas caafimaadka iyo soo badan bani'aadamku waa lacag jecel yahay maho waxa ii soo booday lacagti markaas waxaan dhahay bari igey way keentay meesh marka ay keentay meeshii iska diiwaan galiyay anoo lacag rabo laakiin aad u xanuunsan oo 2 sano xanuunsana markii aan meesh imaaday daawadii iibsaday daawadii qaatay guriga tago waa isticmaalay markii aan isticmaalo adii 45 cisho aan isticmaalay daawadii xanuunada isku arki jiray way iga been inta badan way iga been in yar ay ugu hartay markaas waxaan cuni jirin marka hore sidii sokorto kale marka cuno anoona sokorna lahayn aku baridi jiray ilaa qanjirka ma shaqeeyahay maho qaraar oo sii daya qaraarkaasna dhiigo wuxuu ku milaa macaanka oo jirkaada galo ku milaa shaqadii oo gabay sokorta marka cuno marka waxa sameeyaa barar maalmaas ma shaqeysan kari guriga jiifa maalna shaaha cab isna shaaha marka cabay bararkii male talo waxaan dhahay daawadu waa fiican tahay waa lagu caafimaadahay balaan soo badsado daawadii soo qaata hadana mar labaad cudurkii waa iga baay alxamdulillah shukr hadda waxaan qof fiican oo macaankeeda cunaayo digirta iyo basbaaska iyo waxyaabii dhib jira marka xasaasiyad qabay na hadda si toos ah u isticmaala alxamdulillah shukr marka daawada shirkadda Tennis ee dabcan ay ku siisay ee lagu qoray ma waxaad ku soo gabagabeysay oo aad ku caafimaad 45 cisho mise waqti daawooyin kale ba jiray oo bilooyin kale isticmaalis waxaan ku darsaday horta daawada isticmaal waa tan aad u jeclaa jidsiina la daawadan qof xanuunsan oo xataa markii la sheego daawooyinka oo dhan waa daawo fiican oo tayo leh daawo kastaba way fiican tahay laakiin qof kasta waxay isticmaashay si jeceshaamo daawada waa ka dambeeyaan jidsiina la daawadana isticmaalay markii aan 45 cisho joogay oo fiicnaadan waxaan ku darsaday daawo la yiraahdo gold sibis aan ku darsaday waxaan ku darsaday gold sibis iyo waxaan isku qaatay singi labadaas tana isticmaalay gold sibis iyo singi aan ku darsaday labada daawo marka maxaa dhakhtarku kugu sheegay dawadan waxa waaye qashin saar waaye jirka ee waxay ka saartaa wixii ku jiro oo bacteria ah ee ka saaraysa jirka lagu meeraa daawadan marka daawada isticmaalo oo jirkeyga meermay oo caafimaadka aan dareemay daawadaasna waxa waaye adkeen iyo meeritaan eedan isugu jirtaa marka waa isticmaalay daawadii kale marka isticmaalay caafimaadkeyga 100% oo noqday caafimaadkeyga inta aan isticmaalay daawooyinka hadii aan isku soo dardaro adiga 75 cisho kama badno 76 kama badno hadda dabcan waxaa tahay qof caafimaad qaba oo ilaahay daawadii lagu siiyay uu daawo kugu daray waa gartay ma jiraan dad adigu daawada shirkadda ee ku siisay Tennis dad adiga ka sii iibisay oo xanuunsanaa am ehelkaagii oo in ku caafimaad way jiraan waxaa jirto islaan meesha horta markii aan daawada iibsaday waxaan ka noqday xubin waan ka shaqeystaa marka dadkii aan ku wargeliyay in meeshan hanti caafimaad laga helo dad kamida oo aniga dadka aan keena kamida waxay keeneen islaam buro ku taalo islaanta burada ku taalay daawooyin loo qoray daawooyinkaas oo waxa jitisiin maxaa la dhahayay singi waxa loo qoray calcium daawooyinka markay isticmaashay buradii hadda waxay ku taalaa iyadoo yar oo baabi'i rabtay ku taalaa bil iyo 10 bir camal in daawada isticmaalaysa buradii iyadoo ka bi'irtay ku taalaa oo aad u faraxsan ay joogtaa alxamdulillah shukru waxay iidan ku soo haminaysaa inay meesha ka shaqeysato meesha aan ku fiicnaaday dad badan oo ka shaqeysay tiri dad badan oo ogahana waa ka daaweeyaha marka gabadhaasna ana daaweeyay alxamdulillah adigna waa mahadsantahay وهاجاج داوديال محمد محمود سني وحو كمدي هاي دتك كو عافماday daawooyinka oo bixiyo كمبانيجا أما شركة عالمية تنس أو كشقة عافمادك يهانتدا محمد محمود سني بل هذا
xaaladada caafimaad guud ilaahay ha ku ziyaadiyo hadda maxaad dareemaysaa xaaladaydu aad iyo aad u fiican tahay anigu maaragtaa tiyaanis ka hor caafimaadkaygu caadi maba ahayn waxaan ku caafimaaday daawo badan oo ay ka mid tahay suburleyna ay ka mid tahay calcium oo ka mid yahay horta xasaasiyada waxaan u isticmaalay daawada loo yaqaano suburleyna waatan suburleynadana u isticmaalay dhinaca naftirkiisa asaan u isticmaalay calcium wana waa u isticmaalay waa kan calcium kana la yidhaha dhinaca oo kale maxaa ka dareemaysa dhinaca waxaan maaragtay wax koolba camalaa iga dhici jiray marka halka aad aan u fiicnaa hadda 100% waa ku bogsadha hadda aniga waxaan isticmaalay tan oo dhinaca waxaan isticmaalay hal bil tanna wax yar ma ku fariisaba marka aad aan u fiicnaa hadda 100% wax xanuun dareemo ma jiraan hadda qof iyo orod badan ma jirto dad badan oo ku daaweyna waa jira marka ximad ka noqdo haddana inaan ayada ka shaqeysto kaliya aan diyaar u ah darajooyinka sarsare ma gaartay darajooyin sarsare aadan u gaaray maaragtay aniga hadda inaan ka shaqeysto meel kale inaan ka shaqeysto ma rabo marka ugu horeysa adigoo dabcan magacaaga ku bilaabaya ku soo dhawow muqbaahiyaha caalamiga ah ee Muqdisho Cable TV iyo barnaamijkeena ganacsiga dhaqaalaha okay bismillaahir rahmaanir rahiim waan ku dhawahay barnaamijka Muqdisho Cable TV magacayga waa Saciid Maxamed Xasan waan ku faraxsanahay inaan soo booqataan oo waxaan hayno ama bulshada u hayno bulshada gaarsiisan aad baan u faraxsanahay marka waxaan leenahay soo dhawaad aad u mahadsantiin Saciid waxaa ka tirsan tahay shirkadda caalamiga ah ee bixisa caafimaadka iyo hantida ee tennis xarunteeda labaad ee Muqdisho ay ku leedahay Sinai adiga xagee qabisan tahay okay ma sha Allah horta anu company-gan ka tirsanahay company-gan waxaan ka ahay qof loo yaqaano independent business owner amba qof ganacsi madax bannaan leh ayaan ahay aniga qof kastoo company-gan ka shaqeeyana fursadaasi ama doonaya inuu company-gan ka shaqeysto fursadaasi uu sii karaa company-gan ama waxaan ahay qof kamid ah company-ga oo business leh oo businesskiisu madax bannaan yahay amba qof networker tusaale isagoo qof leh network baan leeyahay networkaas macnaha company-ga macaamiil fara badan baan ku soo xiray macaamiishaas ayaan anigu commission ka helaa waana shaqeeyaha qof marketer aan ahay oo company-ga alaabtiisa market gareeya bulshadana gaarsiiya bulshadana iibka ay sameeyaan amba saleskaas qofka uu sameeyo ayaan anigu dadka fara badan oo company-ga ka shaqeeya sameeyaan ayaan commission ka helaa commissionka qaabka loo helano wuxuu leeyahay company wax la yiraahdo marketing plan buu leeyahay marketing plankaas ayuu commissionkiisa ku base garaysan yahay waxaan fahmay adoo ganacsigaagii wata oo madax bannaana ah haddana waxaa qayb ka tahay tennis oo dadka doonaya baa ku soo xirtaa bal shaqadan mise aragta wallaahi shaqadan waan ku faraxsanahay tennis ka hor waan shaqay jiray company-gan ka hor waan shaqay jiray muddo waxaan ku jiraa company-gan 2 sano ayaan ku jiraa ka hor qof caadi ah normal employee ah aba qof shaqaale caadi ayaan ahay oo macallin baan ahay tan isku sheego macallin baan ahay macallin school baan ahay schoolkaas ayaan maadooyin ka dhigi jiray marka qof employee markuu qofku yahay waa qof salary buu qaataa mushaar go'an buu qaataa laakiin halkaan qofku employee ma aha qofku waa qof ganacsi madax bannaan ayuu leeyahay ganacsigaasi minis ayaad adigu commission baad ku shaqeynaysaa halka salary halka looga shaqeeyo commission baad ku shaqeynaysaa minis meeshan awoodaada qofku kartidiisa ayuu ku soo bandhiganaya laakiin qofku markuu shaqaale yahay kartidiisa ma soo bandhigi karo wax go'an ayuu qaataa laakiin halkaan qofku awoodiisa isticmaalaya iibka uu sameeyo ayuu faa'iido ka leeyahay okay wagaag Saciid marka hadda heerka ka gaadhay tennis oo darajooyinka ah ilaa inta ka gaartay okay kamina wuxuu leeyahay wax loo yaqaan star levels buu leeyahay ama darajooyin baa jira darajooyinkaasi darajada koobaad ilaa darajada 8aad ayaa jirta intaas qofku wuxuu wax ka helaa networka ama dadka macaamiisha customerska oo abuuray ayuu lacag ka helaa laakiin qofku markuu darajada 8aad dhaafo darajooyinka laba jira oo loo yaqaan darajooyinka abaalmarinta waxaan anagu u dagaalamayno company-gan maanta waxa waaye global share baan gelinaa global share means company-ga 224 wadan buu ka shaqeeyaa 224 taas wadan ee company uu ka shaqeeyo ayuu qofku percentage caalami ku yeelanaya markuu darajooyinka darajada 8aad markuu wax ku dhaafo anu marka waxaan ahay company-gani darajada 8aad waan dhaafay darajo loo yaqaan pros ayaan ahay waxaan company-gan inta ka shaqeynayay abaalmarino fara badan baan helay dalxiisan ku guuleystay oo wadamo fara badan baan tagay inta company-ga ka shaqeynayay aqoon fara badan baan ka helay company dhexdiisa sidoo kale waxaan ku guuleystay gaari baan ku guuleystay $15,000 oo abaalmarin ayaan company-ga anigu ka helay minis anoo ka shaqeynay waliba less than 2 years amba wax ka yar 2 sano anoo ka shaqeynay company-gan sidoo kale company-ga hadda
global share ayaan galay darajada loo yaqaan bros ayaan hay wuxuu qofku xaq u yeelanayaa inuu 3 bilood oo helo 3% caalami ah percentage caalami oo 3% ah inuu 3 bilood mar ayuu xaq u yeelanayaa taasina waa waxa company-gan maanta uga faa'iido badan yahay qofku inuu normal employee-ga caadiga ah ama shaqaalaha caadiga inuu yahay faa'iidada uu dheer yahay ama company-gan maanta anigu shaqaynayno waa taas aadam